waa ku salaamay xogo la yaab leh ayaa laga helayaa weerarkii xalay argagixisadu ay ku qaadeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho. Maxaa laga arkay kaamirooyinka CCTV ee ku rakiban inta u dhaxaysa isgoyska sayidka ilaa iyo hotelkan. Saraakiil sarsare oo loo xiray inay fududeeyeen weerarka. Madaxweyne Xasan Sheekh oo degdeg ku tagay xarunta Nisa oo baaritaano xoogan ay ka soconayaan. Warbixintan waxaan kuugu la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay sida ay wax u dhaceen soo afjarida weerarka kadib. Soo dhow daawada fadlan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka share gareyso aragtidaadana qaybta hoose commentiga inoogu reeb mahadsanid. Xogo iyo faahfaahin dheeraad ah waxaa laga helayaa weerarkii xalay argagixisada Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka SYL oo kaabiga ku haya xarunta looga arrimiyo dalka ee Villa Soomaaliya. Waxaana weerarka ka dhashay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac, inkastoo argagixisada sidii ay wax u doonayeen aanay u dhicin. Haddaba waxaa jira xogo hoose oo soo baxaya oo ku saabsan wixii laga arkay kaamirooyinka CCTV ee ku rakibnaa inta u dhaxaysa isgoysyada sayidka ilaa iyo sidoo kale hotelka SYL. Waxaana si rasmi ah loo cadeeyay in weerarka ay fuliyeen laba gaari, mid waa baraado midka kalena waa qooqan. Labaduba waxay ka soo gudbeen dhanka isgoyska sayidka, halkaas oo la og yahay sida loo ilaaliyo amniga oo ay ku sugan yihiin ciidamada ilaalada ee madaxtooyada. Waxaa la sheegay in qaraxa uu ku horeeyay gaariga nooca baraada loo yaqaano kaas oo hotelka gudihiisa lagu sii baakimay. Waxaana la sheegay in intaasi kadib qaraxa uu xigay gaariga qooqanta oo ay la socdeen laba nin. Isla markaana waxa uu ku sii baakinaa ama uu yaalay marka qaraxa koobaad uu dhacayay nawaaxiga taalada dhagaxtuur. Qaraxa kadib ayuu u soo gudbay dhanka hotelka, waana mid ka sababay waxyeelada soo gaartay xildhibaano iyo saraakiil ciidan kuwaas oo ka soo baxaya hotelka qaraxa koobaad markii uu dhacay kadib. Sidoo kale xogta waxay sheegaysaa in durbaba gurmad ay halkaasi ku galeen ciidamada ilaalada madaxtooyada ee halka ka dhawaa. Waxaana taasi ay suuro gelisay oo degdeg ay ku qasabtay argagixisadii inaysan fursad u helin sidii ay sameyn jireen inta gudaha galaan ay mid u toogtaan dadka halkaasi ku sugan. Waxaana dagaalka uu ka bilowday barxadda hore ee hotelka, taasoo keentay in raggii weerarka fulinayay oo 4 nin ahaa oo ugu dambeynna la soo afjaray ay awoodi waayaan inay gudaha u sii dhaadhacaan inta dadku ay ku sugnaayeen. Sidoo kale kaamirooyinka waxaa laga arkay dhanka checkpointiga ama isbaarada amaba barta control ee taala sayidka. Marka uu soo gudbay gaariga qooqanka waxaa saarnaa hal nin, waxaana la sheegay in markii uu meel dhexe soo maray uu soo raacay nin kale sida ay xogaha tilmaamayaan. Dhinaca kale waxaa hadda xabsiga loo taxaabay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada. Waxaana loo haystaa inay ka dambeeyeen ama lagu tuhmayaa inay ka dambeeyeen fududeynta in gaadiidkan ay ka soo gudbaan checkpointiga laga ilaalinayay madaxtooyada ee dhanka sayidka. Waxaana ku socda baaritaano. Sidoo kale waxaa la xiray dhammaan askartii halkaasi joogtay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu gaaray xarunta looga arrimiyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa, halkaas oo baaritaanada ugu weyn ay ka soconayaan. Waxaa la baarayaa sida ay wax u dhaceen. Kaamirooyinkii ayaa la wada fitishayaa oo waxaa la doonayaa in la ogaado ilaa iyo meesha ay sheekada ka soo bilaabatay. Maadaama dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ay ku rakibtay kaamirooyin, waxay taasi suura gelin kartaa in qorshaha meesha uu ka soo bilowday la soo daba kaco ilaa iyo dhamaadka. Waxaana la heli doonaa dhammaan isteebyadii ama tallaabooyinkii ay soo mareen argagixisada weerarka fuliyay, sida meelaha gaadiidka ay ka soo baxeen, halka lagu soo diyaariyay, iyo weliba sidoo kale dhammaan dadkii soo fududeeyay haddii ay yihiin saraakiil ama cid kaleba. Baaritaanadan waxaa la filayaa inaysan noqon kuwii horay ay u sameyn jirtay dowladda oo ku eg oo keliya xilliga dhacdadu ay dhacdo kadibna aan la sii daba kicin. Sababta ay tahay Muqdisho waayadan dambe waxay ahayd ammaan, amnigeedana waxaa ku dirsaday dhammaan shacabka Soomaaliyeed. In weerar sidan oo kale uu dhaco waxay ka turjumaysaa in la isdhigtay oo hay'adihii amniga ee arrimahan shaqada ku lahaa ay isdhigteen, walow hore ay u jireen warar hoose oo sheegayay in weeraro ay dhici doonaan ama ay dhici karaan kadib markii laga war helay argagixisadu in ay rag soo dirtay. Haddaba waxaa la sugaa waa jawaabta dowladda iyo weliba sidoo kale in meel cad looga soo haro wixii dhacay iyo in cid mas'uuliyaddeeda ay qaadato. Sidoo kalena dowladdu waxay soo afjartay dhammaan howlgalkii SYL, waxaana la wada toogtay raggii dagaalamayay oo 4 nin ahaa. Haddaba daawada aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb, muuqaalka share garay si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid.